doontaa, xiise gooni ay yeelan doontaa, laakiin kooxda Barcelona ayaa waxay ku badisay 3-0. waxaa lagu ciyaarayay gegida kooxda Barcelona ee Camp Nou, waxaa ka dhex muuqday Lionel Messi. marka Liverpool isku day fiican ayay samaysay qaybtii hore ee ciyaarta, laakiin waxaa garoonka laga saaray Naby Keita oo si fiican qadka dhexe ugu maamulayay kooxda Liverpool. waxay soo geliyeen Henderson. taas ayaa waxaa la dhihi karaa dhibaatada ugu weyn ee soo wajahda ay noqotay. markaas ayay culeyska Barcelona kusoo batay kooxda Liverpool. sidaan la socono, Keita wuxuu ahaa kubad sameeye, kubadiisa si kalsooni ah ayuu u haystay. Liverpoolna way ku deganeed. waxaana hore uga maqnaa Wijnaldum oo isagana qadka dhexe u maareeyay kooxda Liverpool. tababaraha marka Liverpool Jurgen Klopp waxaa qasab ku noqotay Keita waxaa dhaawacay oo weliba si u beegsaday la dhihi karo ulakac Ivan Rakitic oo qadka dhexe uga ciyaara, waana la saaray. wuxuu soo geliyay Henderson. ciyaartiina waxaa markaasi ay noqotay in kooxda Barcelona ay u wanaagsanaatay oo garoonkeedii joogto. waxaad ii sheegtay yaa kala dhaliyay goolasha? goolasha horta waxaa ku furay Liverpool. dhibanaha koobaad waxay u noqotay laacibka iska soo iibiyeen Suarez oo u dhashay dalka Uruguay oo lacag badan ay ka siiyeen Barcelona. ciqaab ayay ku noqotay taas Liverpool. sidoo kale waxaa aad u muuqday Coutinho oo Liverpool ay iska soo iibiyeen. markaa fiiriso laba ka mid ah ciyaartooyda dhibaatada ku haysay Liverpool ayay ka yimaadeen, iyo Leo Messi oo ah farqiga kooxaha kale ay kooxda Barcelona dheer tahay. markaa aragto Messi, haddii aad isku dayda xitaa inaad xirto ama asaga aad joojiso, wuxuu isku dayaya inuu fursado kuga abuuro. hadduu kusoo dhaafana goolal ayuu dhalinaya. marka Leo Messi marka goolal ayuu ka dhaliyey, 2 gool ayuu dhaliyey. mid birta ku dhacday oo Suarez uu rabay inuu dhaliyo oo soo laabatay ayuu si xaraga leh u dhaliyey, iyo goolka loo yaqaano darbada xorta ah markii qalad ay gashay Liverpool loo dhigay ayuu ka dhaliyey. marka ciyaar kale ayaa jiri doonta, laakiin ciyaartii xalay Barcelona ayaa maamulatay 3-0 semifinal Champions League. in lagaaga badiyana waa wax ay adag tahay in laga soo noqdo. waan gartay. marka goorma ayaa ay dib u kulmi doonaan labada kooxood? natiijo 3-0 sidee ayay kooxda Liverpool aad leedahay u soo gudi karaysaa? waa mahadsan tahay Sandere. 3-0 marka ay koox ku badiso oo garoonkeeda joogto oo weliba koox weyn ah, waxaa la saadaaliyaa inay lug la gashay finaalka koobka. Barcelona ma aha koox ku cusub tartankan. sidoo kale waxaa loo arkaa hadda inay tahay kooxda ugu awooda badan kooxaha ka qayb galaya tartankan. markaad fiiriso ciyaartooyda ay haystaan, hanaankooda ciyaareed, inay yihiin dad aad isu fahmay oo wax badan soo wada ciyaarayay, taas marka la qiimeeyo, iyo Liverpool oo iyada dagaal geli karta. laakiin dhibaatada Liverpool haysataa waxay noqonaysaa haddii 3 gool ay keensato, sidee ugu suuragelaysaa inay shabaqa ka ilaaliso Messi, Suarez iyo Coutinho iyo weliba Ousmane Dembele. yacni taasaa xoogaa ku adkaanayso. waxaa dhici karta Liverpool inay niyad siiso. waxaa soo kici doona Wijnaldum, Firmino oo dhaawac ahaa oo daqiiqadihii dambe soo galeen wuu soo laaban doonaa. inay goolal dhalinayaan lisma weydiinayo, laakiin waxay ku xiran tahay sidee weerarka Barcelona ay isaga difaaci doonaan, ay u maareyn karaan. haddii xalay ay 1 gool xitaa dhashan lahaayeen Liverpool, natiijadooda wax weyn ayuu ka tari lahaa. Liverpool kolley dagaal adag iyo waxaa sugaya iyo shaqo adag iyo sidii ay u joojin lahaayeen Barcelona, isla markaana ay goolal u dhalin lahaayeen. talaadada soo socoto oo 7 bisha ayaa la ciyaari doonaa. kulankan waxyaabaha laga diiwaan geliyay waxaa ka mid ah in Lionel Messi uu dhaliyey goolkiisii 600 oo kooxda Barcelona uu dhaliyey. sidoo kale inuu noqday ciyaartooyda ugu badan ee dhaliyey waxa loo